qarax khasaare geystay ayaa ka dhacay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. mar aan wax ka weydiinay wariyahayaga nooga soo warramay magaaladaasi Beledweyne. Cismaan waxa nooga warantaa sida ay wax u dhaceen iyo qaraxaasi khasaaraha uu geystay. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Naciima. qaraxan ayaa maanta waxa uu ka dhacay kontaroolka hore ee garoonka Awaas Khaliif Airport halka ay ciidamada dalka Djibouti ay ku baaraan shacabka marka ay doonayaan inay garoonka ay galaan iyo gaadiidkaba. qaraxan ayaa wuxuu dhacay xilli baaritaan uu ku soconayay qalabka ama alaabaha dadku ay wataan. qaraxan ayaa wuxuu ka soo gaaray Naciima ilaa 3 qof oo rayid ah oo dhalinyarada ay ka shaqeeya shirkadaha diyaaradaha. aad baad u mahadsantahay Cismaan. ma jirtaa qaraxaasi cid sheegatay? aad iyo aad u mahadsantahay Naciima. waxay jireen howlgallo ay ciidamada halka ka sameeyeen. ciidamada booliska ayaa waxay bilaabeen inay qabtaan dhammaan dadkii garoonka ay goobta ku sugnaa waxaana la geeyay saldhigga booliska magaalada Beledweyne oo su'aalo lagu weydiinayay. Naciima way jirtaa oo saameyn ballaaran ayuu qaraxan wuxuu ku yeeshay gudaha magaalada Beledweyne. ciidamada ayaa foojignaan weyn muujinayay iyadoo ay ciidamadu ay farabadan lagu arkayay garoonka aan ilaahay wadooyinka waaweyn ee magaalada Beledweyne kuwa oo isugu jiray ciidamada booliska ee nabad sugidda iyo kuwa militariga ayna buux dhaafiyeen dhammaan wadooyinka si ay uga hortagaan haddii qaraxyo kale ay dhacayaan. wax wara kama soo bixin dhanka ay ciidamada AMISOM dhowr jeer ay isku dayeen la